soo dhawaada saaxiibayaal mar kale filimku wuxuu ku bilaabanayaa wiil yar oo la yiraahdo kaasoo ay ku xadgudbaan inta badan ardayda iskuulka laakiin walaalaha gabar halbeed ayaa ugu daran maalin kasta waxay kaxeen jireen waxay ku tuuri jireen qashinka xitaa maasiyaas bay ku sameeyeen laakiin tuu ku fakad wuxuuna gal fasalka wuxuu la kulunkiisii kadibna wuxuu ku biiro fasalka kaasoo saaxiibkiisii uu ku jeedinayay bandhig laakiin intuu jeedinayay wuxuu hilmaamay wax walba markii macallinkii weydiisay shaqadiisii guriga wuxuu yiri shaqadiisii guriga waxa cunay maas waa marsiis liyaab si kastaba haatee waxay u muuqataa in fasalku uu dhamaaday markii uu fadhiisay dibadda fasalka Loki baa u yimid si uu la hadlo wuxuuna siiyay shukulaato tiyo wuxuu u diino qaato balse arintaasi gudaheeda walaalaha Loki baa yimaaday waxaan la tagay markii wuxuu ku wadeen Loki tiyo wuxuu arkay shukulaato ka daadinaysa sarwaalkiisii iskoolkii uu dhamaaday tiyo wuxuu u dhaqaaqay gurigiisii balse tiyo wuxuu bil in dabagal si uu dhibo markuu isku dayo inuu ka fogaado wuxuu bedel wadadaasi waxaa yaalay bool yar taasi cabsi gelisay wuxuuna fuulay xitaa ardayda meesan kar waxayna bilaabay inay dhagaxaan ku tuuraan ilaa uu ku meerbeero dhulka ku soo dhacay markuu soo miirsado wuxuu arkay gacmidii bilo hoostiisii yaala wuxuuna qaadsigoo maqlay cod liyaab leh tiyo wuxuu baqbars wuxuu doonay inuu saaxiibo markuu siyaasir muqlaqaad yar oo qolaad yimid wuxuu la yaab aragtidoodii wuxuuna ku qorborsidiisii iyo gurigiisii la aaday markuu gurigii muqlaqaadkaasi waxay ka bixeen borsidiisii waxayna ogolaan jikada si cunto u sameeyaan tiyo aad u jecel cuntada ay sameeyeen kadib wuxuu ka xistay qolkiisii muqlaqaadkii waxay nisbeen qolkiisii waxayna ka saareen bareelkiisii kuwaas oo dad u noqon jiro qosol intaas kadib walaashiisii baadintaasoo telefoon kula dooda wiilkeedii markii inta muqlaqaadkii way dhuntay laakiin intii furaha raadinaysay walaashiisii waxay dhagaxii midib kala kaasoo rumay ribitaankiisii markii dhagaxa qaad wiilkeedii wuxuu u sheegay hadal xun markaastii wuxuu isku dhintay dhagaxii buutuuri maalintii xigtay tiyo wuxuu iskuulka la tagay saaxiibadiisii adniin wuxuu ku qoray borsidiisii laakiin inkastoo ay qarsoonaan waxay sameeyeen dhibaato waxay boorsada ku ciyaareen muusig macalinku uu canaantay markuu uruna soo saar sanduuqiisii mid muqlaqaadkii ma aysan ogolaanin markuu xog ku soo saar wuxuu ku dhac madax halbitiika halbitiika waxay doonaysaa in argooto waxayna doonaysaa in cunto kulunka tiyo markii afka gelis kulunka tiyo wuxuu horti ugu soo saaro markuu caloosheedii qabsaday labadoodii waxay ku dhicin daaqada iyagoo kaashanay awoodda tiyo muqlaqaadkii waxay badbaadiyeen kulunkii waxay kaliya kuuriyaan laakiin labadoodii way dhaceen markii kulunkii badbaadiyeen muqlaqaadku waxay raacantay oo dhulka lagu madowgiisii halbitiika waxa laga isbitaalka gacmahoodii baa jabay markaas gacmahoodii waxa la saaray daawac waxayna bilaabeen islaan saaxiib noqdaan saaxiibkoodii Luke isagu wuxuu noqonayaa saaxiib fiican hadda waxaana sheekada dhagax midib kale maalmo kamid Luke wuxuu la ciyaar walaalihiisii halkaas waxa ka muuqda khansarawaad waxayna doonayeen in arkaan halkuu ka bilaamayo markii Luke halkaas wuxuu maqal codkii oo ah in la sameeyo rabitaan Luke wuxuu daray rabitaan cawray shukulaato in samwiligiisii ka dhiman jeebkiisii kadibna shukulaato ka bilatay ka soo baxday jeebkiisii markii Luke uu rabitaankiisii uu rumo dhagaxan wax kasta uu rumaynayo wuxuu rabitaankiisii labaad ka dhigay wuxuuna weydiistay qadac laga dhisay meesha oo la baali masas iyo xasab badan walaalihiisna waxay doonayeen dhagax waxayna bilaan inay dagaalan Luke si ay ugu qaataan sidaa darteed dhagaxu ku dhacay baliga markii hoos u dhacay si uu helan wuxuu ogaaday in dhagaxu dul saarin wajiga xaaska markii Luke dhagax qaaday xaaskii baa cunay markuu ka soo baxay xaaska wuxuu arkay masas badan ka daba socdo walaalkiisii wuxuu rabitaankiisii ku dab dhagax gacantiisii ku jira markuu ka soo baxay xaaska wuxuu jeebkiisii ka arkay shaqadii guriga taasoo cadaadinaysa in xaaska run sheegaya xaaskii dhabahan baa cun shaqadii guriga markii dhagax laga soo saaray afka xaaska xaaskiisii wuxuu daray rabitaan wuxuuna weydiistay inuu bilaabo inuu ku socdo lugood rabitaankiisii wala markii markaas wuxuu noqday xaas lagiisa lagu soconaya markaas bakeelin bay mid qalaacdi u qaaday laakiin xaaska kale ayaa bilaabay inay fuulaan waxayna heleen masuusun iyaga caawinaya kaasoo dhamaan wasaqadii ku daaday Luke aad wuxuuna bilaabay rabitaan inuu guriga ku noqdaan markii guriga tagay waxay weydiisay inaysan weydiisin rabitaan sax ah waxayna ogaadeen rabitaanka lagu dalbanayo maskax xaaskii wuxuu dalbay rabitaan in walaalkiisii caqli yeesho laakiin halkuu Luke walaalkiisii caqli ka yeelan lahaa walaashiisii yar baa caqli yeelatay waxayna awood talaasiis awood ay ku xakameyn karto dadka iyo waxyaabaha waxayna bilaan fikirkeedii ku gelis madaxyadooda markii rabitaankoodii uu bilaabo inuu qaldamo
walaalkii Luke wuxuu qad dhagaxii wuxuuna si fog u tuuray waxaan halkaas ka helay Tiyo aan ku soo noqon waqtiga saxda hadda walaasha Tiyo saaxiibkeedii fasalka noo siiyay doon wax baraabahood wuxuu aasiyaysan mana ogola in James uu gal gurigiisii walaasha Tiyo waxay ka nidinaysaa guriga Jameska markii guriga timid waxay dhagaxii walaalkeeda noo si aad u jecel dhagaxoon isku dhigmin inuu sig leeyahay Tiyo wuxuu yimid guriga noo si ugu raadin dhagaxiisii laakiin noo way ka xanaaqday sababta saaxiibtinimada hore bay u jibiyeen Tony uu ku cudur daartay wuxuu weydiisay dhagaxii midabka lahaa laakiin noo wuxuu ku yirmay Tiyo waa qaada dhagaxii wuxuu yiri waxaana jeclaa in tijaabada aabbahay ii shaqeyso noo wuxuu maqdhawaaqay leeyahay wuxuu nadiifisankiisii wuxuuna ku tooshay baarka aabbihiisa tijaabada aabbihiisa badash in noqoto bahal noo wuxuu maqdhawaaqaydaas wuxuuna marina aabbihiisa hurdaya markaas yeeshay baarka aabbihiisii markaas waxa kan loo gifto isku day inay jaaqada jibiyaan aabbaha noo si baarku wuxuuna bil inuu James tiraayo xilligaas aabbahalkii weena soo baxtay Loki waxay dhagaxii ku jir gacanta noo si markii isku day inay jibiyaan dhagaxii wuxuu ku duul afka baak dhakhtarkii wuuna way wuxuu in isku day inay jibiyaan daaqada noo wuxuu dhakhtarkii wuxuu dhisay darbi glass laakiin bahalkii baa jibiyay darbigii glasska ahaa noo wuxuu si maxal yaab wuxuu cun urkiisiisankiisii bahalkii ya bareen daba gol qof kasta wuxuu isku day inuu baxsado laakiin toy muddo inuu tago wuxuu doon dhagaxii midibka lahaa noo si bahalkii sar u tuur kor intuu san cilmi bahalka noo wuxuu sankiisii ka soo saar bastood wuxuu ku hanjoo bahalka wuxuu inuu badbaado saaxiibkiisii markuu bahalka tag saaxiibkii noo waxay ku carreen guriga laakiin bahalkii ka daba baxay kor intiisan adduunka arkin bahalka noo wuxuu ku dhacdaa laakiin Loki toy waxay heleen dhagaxoodii waxayna ka carreen meesha toy wuxuu gurigiisii ku soo noqday dhagax isigoo wata waxayna muujineen hooyadiisii aabbihiisu socdaan kullu muhiim midkood uu noqon lahaa walgal shirkadda laakiin waxay hayeen kuwa iska soo horjeeda hooyadii toy waxay u timisay ugu aragto markaas saaxiibkii toy ayaa firin u diray hooyadii toy waxay furtay indhaha hooyadii toy waxay iska dhigtay in labistigeedu ku dhacay hooyadii toy waxay qaaday dhagaxii midabka la waxay u bixeen xafladda hooyadii toy waxay u sheegtay aabbihiisii aad isku dhawaayeen waxaana muujinay isku darsameen toy wuxuu shooday wuxuuna isku qoray xafladda dhexdeedii boorsadii hooyadii toy waxay ku dhacday jaranjarada hooyadii toy waxay halkaas ka shalbatiika hooyadii toy waxay gabadha madaxa shirkadda ka aabaha toy wuxuu inuu boosto hooyadiisii u qaatay laakiin labatiika waxay madax ugu dhufatay aabbihii toy wuxuu caanaqtay labatiika waxay u kaxaysatay jikada waxayna weydiistay wuxuu ka sameeyay xafladda wuxuu u sheegay inuu qaato boorsada hooyadiisii wuxuu qaaday dhagaxii laakiin labatiika ka qabsatay wuxuu markale qaatay dhagaxuuna lagu yiri si dhagax labatiika waa ibarto waxa la weydiiyay sidii ayuu dhagaxan u shaqeeyaa walaalka labatiika ayaa qaato wuxuu ku riday qashinka labatiika waxay tir waxaan jeclaan lahaa inuu yahay kineeco hooyada iyo aabbaha waxay kartay inuu wixii ku dhacay soo bahayaan dhagaxani waxayn u baahnayeen dhagax si wax walba caadi ugu soo noqdaan isiguna wuxuu ku dhacay qashinka labatiika waxay dhagaxii ku riday saxan u wato adeegaha saxankaas oo loo aabeedi ka soo qaada dhagaxa hooyada iyo aabbaha waxay u yimaadeen iyagoo dhagax raadinaya aabbaha wuxuu labadiina si karba ay timaadeen aabbaha labatiika wuxuu ku faraxsanaa sidan tihiin labatiika wuu isku dhacay waxaan rumorbitaankoodii cadawgiina waxay bilaabeen isdagaalaan labatiika way caroodagii xafladda iyo dagaal la gal aabbaha labatiika dhagaxii gacantiisii ka dhaca hooyada ayaa dhagaxa qaadatay waxay la qabsay gacanta labatiika wuxuu dhagaxii u geeyay aabbihiis wuxuu mar labatiika u timi hadal aan micno lahayn labatiika waxayna ku tir aabba dhageyso labatiika way ku raaxaysatay waxayna u sheegtay inuu furto dhagaxa kadibna way carartay hooyadii aabbaha iyagana way carareen waxay dooneen dhagax labatiika ma wadin baaskiilka xakamayso waxayna ku dhacday qashuqob dhagaxii ka dhacay gacanteedii wuxuu ku noqday gurigii weyna wuxuuna ku dhacay gacanta aabbaheedii dad badan ayaa raacay labatiika wuxuu qabsaday dhagaxii wuxuuna dalbay in wax caadi noqon dhamaan cadawgii way kala tageen hooyadii aabbaha way kala noqdeen walaalkii labatiika isna wuxuu noqday caad wuxuu tuur dhagaxii wuxuuna ku soo noqday meeshii marka hore ka qaatay waxayna marka hore muujisay muuqaal hore ugu dambe igu guriga bax labatiika iyo hortoodii timid iyadoo wata kooxda aabbaheed wuxuu doonay dhagaxa ay caso dhagaxii ka hor intiisan aabbaheed usun qabsan wuxuu jiiday dhagaxuun inuu duulo wuxuu soo bedel shimbir wuxuuna ku dhacay dhulka dhagaxii ku dhacay gacanta walaalka Loki wuxuuna dalbay in gacmihiisa ay dheeraadaan laakiin labatiika way caqabadeen waxayna qaadatay dhagaxii Loki wuxuu gacmihiisa la arki karin laakiin labatiika ayaa noqotay mid aan la arki karin dadkii oo dhan waxay bilaabeen in daba carran dhagaxa Loki wuxuu adeegsaday gacmihiisa dhaadheer wuxuuna qabsaday dhagaxa labatiika waxa ay fartay Loki waxayna dhagaxii ku dhacay gacanta aabbaheedii wuxuu sidii anaga hadda ugu awood badan markaas shaqaalaha dhan wuxuuna doonay wax walba ku sameeyay dhagaxiisa kaligiisii wuxuuna
lacag badan hel wuxuuna furbuur lacag ah. Helbatiik iyo saaxiibadu waxay fahmeen bini'aadamka damac ka dhamaanin markaas Helbatiik oo shataabay in lacagtoo dhan lagu wareejiyo bankiga ilaalada ammaanka iyo jacayl fikradaas markii lacagtoo dhan la wareejiyay boorti lacagtii waxay bilaa inuu dunto laakiin Helbatiik way badbaadiyay dhismo kala laadaysa dhagaxii wuxuu ka dhacay gacanta ilaaliyaha koor intuusan wax Helbatiik ay taabata dhagax waxay tiri ilaaliyaha soo bedel suusi dhammaan dadkii wayaba markii arkeen qofkaasi waayo wuxuu wiilka saaxiibka la walaasha tooy kaasoo hor u dalbay inuu weynaado saaxiibkii walaasha tooy wiilku weynaaday wuxuu lug dhig aabaha tooy markii ku dhacayeen aabaha Helbatiik wuxuu qaatay dhagaxa wuxuuna dalbay inuu noqdo kan ugu awood badan wuxuuna isu bedel sanduuq madow waa isla sanduuqii Helbatiik qaban jiray shaqooyinkeedii dunida hadda wuxuu isu bedel robot weyn Helbatiik iyo saaxiibadu waxay fiin halbeed hal isku yeed dunida oo dhan marka Helbatiik wuxuu isu bedel shishin weyn walaalkeedii wuxuuna qadciyaan weyn markii la dagaalamay aabahooda tooy luuk meesan ka hirin tooy wuxuu saaxiibadiisa shisheeyaha inkastoo weerar badan dhacay wiil xoog badana wuxuuna turmudlaagi wuxuuna ku soo dhac walaasha luuki laakiin walaasha luuk waxay dagstawoodeeda transisika ah waxayna u jismin dulaagi hawada caruurtu dhan waxay ka walwasnaan sida damcaadanaha oo soo burburka dhagax sixirka ah looki wuxuu dagstawoodiisii transisika ah wuxuu ku soo celisay caadiga ahayd markaas uu ka fikir in dhagax sixirka la burburiyo si ay dadka u dhimixoon u sheegay dhammaan saaxiibadiis dhammaan waxay ku heshiiyeen in la burburiyo waxayna burburin dhagaxii waxaana cirka soo baxay durmoodo oo aad weyn sheekadan waxay ku dhamaatay halkani sheeko walba maqas walba dhab waxay leedahay kunaanad sheekada kunaanadkan waxay ka hadlaysaa awoodda macsaxiibtinimo ah in caruurtu ku taageeraan muhiimada in la xakameyn karo awoodda oo dhan aysan bini'aadamku noqon karin waxa laag ah haddii halkan nala soo gaartay aad iyo aad baa u maasan tahay hadduu jina subscribe saaro hadduu adin subscribe ku waxaan ka xusuusinaa muuqaalka la noo saartay meel dheer noo gaari aad iyo aad baa u maasan tahay.